Bismillahirrahmanirrahim kulan wanaagsan halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka xiisad xoogan oo ka taagan maanta garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho kadib amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya lagu amray in ciidamada NISA laga saaro garoonka gudihiisa laba qodob oo dhabarjab xoogan ku ah farmaajo hor yaala shirka arrimaha doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranka oo Muqdisho ka furmayo maxay yihiin halkan ayaa idinku soo gudbin doona goorma ay howlgali doonaan guddiga ra'iisul wasaare Roob loo xil saaray baarista afgambigii fashilmay uu ku eedeeyay farmaajo ee 27 Diseembar bishii hore dhacay baarlamaanka Galmudug oo xiisada culus wajahaya iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ka hor yimid go'aankii fadhiyada baarlamaanka looga joojiyay isaga iyo xildhibaano kale iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada maalmihii dambe ka taagnaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo Cali Jees Usmaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo hanjabay General Xuud qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda ayaan ku tabinaynaa taminteena u diyaar garooba mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa labada bisha koobaad sanadka cusub 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku hormarnaan wasiirka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ciidanka booliska maanta faray oo ah 2 Janaayo 2022 inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo hay'adda NISA si gaar ah ciidamada ku sugan garoonka aadan cadde wasiir Cabdullaahi ayaa hay'adda NISA ka dalbaday in laga bilaabo maanta ciidanka dharcadda ah ee ka soo saarta garoonka maadaama ay qalalaase ay ku lug leeyihiin ay marar badan gudaha garoonka ka dhacaan booliska Soomaaliya ayaa saldhig ku leh gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho taliskaas ayaana ka shaqeeya ilaalinta nabadgelyada dadka soo galaya iyo kuwa ka degaya iyo kuwa ka safraya sida uu sheegay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ciidanka NISA oo amray in laga soo qaado garoonka aadan cadde ay yihiin kaliya kuwa dharcadda ah isla markaana ay qalaaso xoogan ka wadaan garoonka waa sidoo hadalka u dhigay askarta ku sugan baraha hubinta laga soo gala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay in ay sii joogayaan oo ayna ku socon warqadda uu soo saaray sida uu hadalka u dhigay Cabdullaahi Maxamed Nuur isbeddelka la xiriira ciidanka NISA ee ka howlgala garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu quseeyay kaliya ciidamada dharcadda ah ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ma ahan kuwa quseeyay ciidanka gacanta ku haya baraha control ee laga gala garoonka aadan cadde ayuu yiri wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qiraafka Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale ciidanka dharcadda ah ee NISA ee ku sugan garoonka ayaa yimid kadib markii shalay la isku khilaafay habka loo soo dhaweynayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo ka soo degay Muqdisho waxaana khilaafkaasi sababay markii isku yimaadeen mas'uuliyiinka kala socda xafiiska ra'iisul wasaare Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo isku khilaafay habka borotokoolka iyo sida loo soo dhaweynayo oo qolada kale u sheegtay in ayaka looga dambaynayo hadalka wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaana u eg mid uu kaligiis go'aan iska qaatay maadaama ciidamadii halka ku sugnaa ay dhinaca farmaajo mas'uuliyiinta ka socday ay xigsadeen taas ayaana keentay in amar uu ku bixiyo in laga saaro garoonka amarka ka soo baxay wasiirka amniga dawladda Soomaaliya waxa qayladaan xoogan durbadiiba ka muujiyay dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka kuwa oo ugu baaqay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka in si degdeg ah looga noqdo garoonka isla markaana ay hadalka mid aan xilligan loo baahnayn isla markaana doorashada dalka mugdi kale iyo muran kale sii galinayo Yaasiin Farey taliyaha ku meel gaarka ah NISA ayuuna ugu codsaday in 24 saac gudahood looga saaro ciidamada ku sugan gudaha garoonka aadan cadde ee dharcadda ah NISA lama oga sida ay NISA u dhaqan gali doonto amarka wasiirka amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur maadaama uu si gooni ah la sheegay inuu Yaasiin Farey uga amar qaato oo aysan isku wanaagsanayn ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta farmaajona uu hoos tago xiisad ayaana ka taagan garoonka maadaama ay maanta ku ekeed waqtigii loo qabtay ciidamada inay isaga baxaan gudaha garoonka si guudna mas'uuliyadda amniga ay ula wareegaan maanta oo ah 2 Janaayo bisha koobaad labadeeda ciidanka booliska Soomaaliya ee ku sugan garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho waa sida ka soo baxay amarka wasiirka amniga dawladda Soomaaliya oo la ogeyn sida uu dhaqan gali doono shirka lagu wada inay dhawaan ee golaha wadatashiga qaranka uga furmaan magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu lafaguri doonaa laba qodob oo dhabarjab ku ah farmaajo shirka golaha wadatashiga qaranka oo la filayo in Isniinta uu ka furmo magaalada Muqdisho kadib markii ay soo wada gaareen dhammaanba madaxda dawlad goboleedyada dalka caasimadda hase yeeshee shirkaas ayaa wajahaya caqabado xoogan waxaana yar fursadaha lagu qaban karo in lagu meel mariyo laba qodob oo xasaasi ah kuwaas oo gadaal ka riixayaan ra'iisul wasaare Rooble iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka
sida aynu xogta ku helnay qodobka koowaad ayaa ah in deegaan doorashada dalka lagu soo koobo hal magaalo. Qodobkan ayaana waxaa si gooni ah u daneynaya Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland iyo Cali Guudlaawe oo ayaga caqabad ku tahay ka haysata magaalooyinka Garbaharey iyo sidoo kale Beledweyne oo labadooda midba aysan tagi karin. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa markii hore ka cagajiidaya fikradan waxaana la sheegay inuu hadda taageero kadib markii uu isku soo xumaadeen farmaajo aad isugu hor yimaadeen arrintan horeyna uga digay. Qodobka labaad ayaa ah in Ra'iisul Wasaare Rooble uu doonayo in shirka laga soo saaro baaq ah in amniga dalka si buuxda Ra'iisul Wasaaraha lagu wareejiyo haddiise taasi dhicinna in dalka doorasho hufan aysan ka dhici karin. Sida la og yahay farmaajo ayaa hore Ra'iisul Wasaare Rooble ugu wareejiyay amniga doorashada balse taasi wax weyn ma bedelin waxaana wali hay'adaha amniga si buuxda gacanta ugu haya farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa la rumaysan yahay haddii golaha wada tashiga qaranka ay qodobkan isku raacaan in shuruud uga dhigayaan dhamaystirka doorashada inay hogaami karto in beesha caalamka ay cadaadis ku saarto madaxweyne farmaajo inuu sameeyo inkastoo ay u badan tahay in farmaajo uusan marnaba taasi aqbali doonin. Rooble ayaa qorsheynaya haddii amniga uu gacanta ku dhigo inuu bedelo dhammaan taliyayaasha ciidamada dalka si uu awoodda dalka si buuxda gacanta ugu dhigo. Si kastaba Qoorqoor lafta gareen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa ku xiran farmaajo ayaana lagu wargeliyay inaysan marnaba ogolaan labadan qodob waxaana diidmadan ay ka dhigan kartaa in ay shirkani ku soo dhamaadeen natiijo la'aan ama laga soo saarin qodobo aan macno badan lahayn guud ahaanba shirka muddada ka socon doona Muqdisho. qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu furayo shirka golaha wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka cakiran diiradda lagu saari doono ayaana laga dareemayaa magaalada Muqdisho. Qorshaha ayaana in maalinta beriyo shirkaasi uu ka furmo laguna dhameeyo caqabadaha iyo midmadowga xilligan doorashada Soomaaliya ee muranka badan hareeyay lagu soo afjaro. Lama oga sidoo u dhaqangeli doonaan labadaas qodob oo inta badanba shirka miiska loo saaray mar hore sida ay u dhaqangeli doonaan oo u meel mari doonaan. markaana Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddi ka kooban 5 xubnood waxa uu magacaabay oo ka tirsan gulihiisa baaristii ciidamada fil Soomaaliya ee uu ku hareeriyay xafiiskiisa madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday iyo shaqo joojintii lagu sameeyay xukuumadda 27 bishii December ee sanadkii hore 2021. xubnahan guddiga ee golaha wasiiradiisa ka tirsan ayaa baaris ku sameynaya sida ay dhacdadaasi ku timid saraakiisha hogaaminaysay iyo dhammaanba su'aalo kale oo ay ku gadaaban sida loo abaabulay iska hor istaagaasi muddo 2 cisho ah oo ka bilaabanaysa maanta ah 2 bisha January ee 2022 ayaana guddigani ku baaraya si uu u soo gudbiyo natiijada baarista ee dhameystiran si loo dhaxgeeyo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. wasiiradan la magacaabay ayaa kuwan kala ahaa kow Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga ee wasaaradda dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiye 2 Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya 3 Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka wasaaradda waxbarashada 4 Generaal Bashiir Maxamed Jaamac wasiir dowlaha howlaha guud 5 Cabdixakiin Xasan Abshir wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. kulankii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee qabsoomay 30 bishii December ee soo dhaafnay 2021 ayaana lagu cambaareeyay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saameyn isku day ku yeeshay afgambi dalka ka dhici raba balse fashilmay sida ay xuseen. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaana wada cadaadis xoogan oo waayihii dambe uu saaraya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday kadib isku daygi shaqo joojintii uu ku sameeyay 27 bishii hore ee December. markaana Galmudug gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug iyo mudanayaal kale ee xildhibaanaha ayaa ka hor yimid go'aankii fadhiyada looga joojiyay kadib amar ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa ka hor yimid go'aanka isagoo xildhibaano kale uu gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Maxamed Nuur Gacal uga joojiyay fadhi oo kamid ah fadhiyada baarlamaanka oo ilaa 4 gaariyo gunnadii ay qaadan jireen ee mushaarkoodana laga xanibay. gudoomiye Cabdullaahi Xirsi ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Gacal ku eedeeyay inuu xadgudub sharciga iyo xeer hoosaadka maamulka isla markaana uu ka been abuurtay dastuurka u yaala dowlad goboleedka Galmudug. xildhibaan Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in gudoomiye Gacal uu cilaamiyay awood dheeraad ah uusan siinayn xeerka hoosaadka baarlamaanka una soo saaray warqad ku carqaladeynaya habsami u socodka shaqada baarlamaanka Galmudug. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay u midoobaan sidii ugu hortagi lahaayeen gudoomiye Gacal oo ay soo saaray oo go'aanada 4 fadhi oo gunnada iyo 2 bil ah looga joojiyay xildhibaano uu ka tirsan yahay isaga oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug ah iyo ilaa 5 xildhibaan oo kale. xubnaha uu shaqo joojinta ku sameeyay oo gudoomiye ku-xigeenka uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Gacal ayaana maalmahan aad u diidaya shuruuco aan marin habraaca saxda ah ee baarlamaanka xoog lagu marsiiyay iyo qalalaad kale ee lagu eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug inuu ku kacay Dr. Maxamed Nuur Gacal.
Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaana sheegay in wadaan abaabulka ugu dambeysay mooshin ceelka looga tuurayo maadaama uu sheegay inuu ku xadgudbay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal xeerka baarlamaanka Galmudug iyo dastuurka intaba gudoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanadii kale ee laga joojiyay fadhiyada baarlamaanka iyo sidoo kale lacagtii mushaarka ay qaadan jireen ayaana aad uga hor yimid arrintaas iyagoona ka digay inay xiisad hor la ka sii dhalato haddii aynu aadna magaalada Beledweyne ugu dambeyntiina ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolkaasi Cali Jeeste Cismaan ayaana waxa uu la shiray saraakiisha amniga magaalada Beledweyne si ay uga wada hadlaan isku horimaad laba habeen ka hor ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne oo dhexmaray saraakiil gadoosan oo ku mowqafa Generaal Xuud iyo ciidamada ammaanka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa dhaliilay hanaanka u shaqeynayaan laamaha amniga magaalada isagoona saraakiisha ku amray in ay la yimaadaan qorshe amni oo ka duwankii hore waxaan rabaa in ammaanka magaalada Beledweyne wajigii hore mid aan ahayn uu yeesho hal sano iyo bar ayaan xaaladan ku noolayn mana lagu noolaan karo saraakiisha waxaan ka doonaynaa inay degdeg amniga wax looga bedelo ayuu yiri Cali Jeeste Cismaan sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan inaysan u dulqaadan doonin jamaadaha Generaal Xuud oo ku jirta duurka oo marar badan weeraro ka fuliya gudaha magaalada Beledweyne sidoo kalena aad u diidan in magaalada uu tago madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulkaasi marka laga reebo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan si gaar ah Beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa saraakiisha ee gobolkaasi aad ugu canaantay amniga in ay wax badan ka qabtaan sheegana in hadda oo la joogo ay looga baahan yahay inay qof kasto oo lid ku ah amniga la dilo waa sidoo xusaye gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeste Cismaan isagoona saraakiisha ciidamada ku amray inay sameeyaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kana hortagaan jamhadda Generaal Xuud ee ku jirta duurka magaalada Beledweyne maadaama magaaladaasi ay isku diyaarinayso doorashada kuraasta qaar ee ka soo jeeda deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle inta ayaana ku soo gabagabaynaa barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News leegta iyo follow saar oo nagu soo biiro saaxiibada nagu tixan ka mid noqo si aad u hesho xogaha aynu halkan ku soo gudbina mahadsanidin